مسؤول oo madaxweyne oo laba gobol madaxweyne ka oo madaxweynihii state Hirshabeelle oo ay doorteen beelaha xildhibaano ay soo xuleen oo reer Hirshabeelle ay doorteen in horta markii koowaad oo u gafay beelihii iyo xildhibaanadiiba uu yiri anigu xilkan waxa ii dhiibay 13 xildhibaan iyo jufadayda waxay aad horta gaf aad u weyn ay oo dadka ay la yaabeen tan labaad wuxuu yiri Hirshabeelle waxa ka tashanayo sidii ku dhisantaa waa qalad laba beel beeshayda iyo beesha madaxweyne ku-xigeenka waa gaf kale Hirshabeelle waxaa degan qabaa'ilo fara badan qabaa'iladaas degan hadda muxuu ahay cirka korkooda ma deganee dhulka Hirshabeelle dhul kamid ah qabaa'il kasta ay degan yihiin dhulkaas iyo dadkaas iyo dhaqaalahaas la isku darsaday isteeda la dhisay isteedkii uu dhisan yahay haba ahaada isteed madaxdiisii musuqmaasuq ay ku hogaaminayaan laakiin magac ahaan uu ka jiraa isteedka marka hadda inuu yiri haddana asigoo la hadlay beeshiisi haddana ay fashiliyeen baraha bulshada ay soo dhigeen oo leeyahay anaga iyo beeshaas wixii aan ku tashano aan la wadaagi doonaa beelaha kale waxay noqotay wax laga argagaxa laakiin waxaan u sheegayaa madaxweyne waare warkaas haduusan oblajaska bixin waayo ama raaligelinka bixin waayo wuxuu ogaanaa horta in baraha bulshada ay dhageysteen dhammaan beelihii ay u gaftay horta cod dambe oo Hirshabeelle ama Soomaali dambe cod dambe ama mustaqbal dambe siyaasadeed aad soo raadis waa ka xaraam waayo dadkaad u gaftay waa sodomeeye qabiil waa midda kale waxaan u malaynaa Hirshabeelle markii la asaasayay madaxweyne waare asiga shakhsiyadiisa dadkii markaas muxuu ahay uu oleynay ayuu kamid ahay laakiin waa og yahay Hirshabeelle meesha ay ka dhisantay iyo dadka dhisay marka waxaan leeyahay madaxweyne waare warkaas waa ku fududaaday hadduu raali gelinka bixin waayna mustaqbalkiisa siyaasadeed ay wax u dhimaysaa insha Allah